Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ciwaankeena maanta waxaan uga hadlaynaa waxa la yiraahdo junk foods and fast foods oo caafimaadka qofka ku leh saameyn. Qofka cuntooyinka uu cunayo laba shay waa ka faa'iida. Faa'iidada koowaad waxay tahay inuu tamar ka helo, tan labaadna waxay tahay inuu nafaqo ka helo. Waxaa jiro cuntooyin nafaqadu ay ku badan tahay, tamartuse ay ku yar tahay, iyo kuwa cagsigood ah. Cuntooyinka dadka ay cunaana waxay ku kala xiran tahay deegaanada ay ku kala nool yihiin. Qaaradaha kala duwan ee dunida maadaama ay kala duwan yihiin cunooyinka iyo dalagyada ay beertaan iyo nooca hilib ay cunaan, waxaa kala duwan cunooyinka ay farsamaystaan iyadoo taasi dhaqankana la xiriirto. Si guud ciwaanka inaan maanta doorano waxaa ku xirnay maadaama magaalooyinka waaweyn ee dalkeena ay kusoo badanayaan meelaha cuntooyinka fudfudud lagu sameeyo. Waxaan garanay in cuntooyinkaasi saameyn caafimaad leeyihiin, marka taas darteed ciwaankan u dooranay. Cunooyinkaas lagu sameeyo meelaha ee ah cuntooyinka fudfudud waxay isugu jiraan cuntooyin nafaqo leh ama xaddiga nafaqadoodu ay ilaa xad fiican tahay, iyo cunooyin aan wax nafaqo ah lahayn oo ay tamarta ku badan tahay. Cunto kasta oo aan karin kaaga baahnayn, oo aan diyaarin kaaga baahnayn, oo aan kululayn kaaga baahnayn, oo intaad kasoo gadato meelaha cunooyinka lagu iibiyo aad sideeda u cuni karto, waa cunooyinka fudud wax la dhaho ama fast food. Cunooyinkaas waxaa jira cunooyin ka mid ah oo ah cunooyinka ugu badanba oo loo yaqaano junk food. Junk food waxaa la dhahaa cunno aanan lahayn faa'iido nafaqo. Cunooyinkaas aan faa'iidada nafaqo lahayn amaba aanan lahayn waxa loo yaqaano fitamiinada, macaadinta iyo diet fiber-ka waxaa loo yaqaanaa junk foods. Cunooyinkaas waxaa ku badan sokorta, cusbada iyo dufanka, waxaana ku yar diet fiber-ka. Cunooyinkaas waa cunooyinka ugu badan ee haddeertaan dadka galbeedka ku nool ay isticmaalaan. Markaan galbeedka dhahayna waxaan ula jeednaa dadka reer Yurub iyo dadka waqooyiga Ameerika ku nool. Cunooyinkaas isticmaalkooda iyo magaaleyntan xiriir fiican ka dhexeeya. Marka maadaama magaalooyinka Soomaalida hadda ay waaweyn ay dadka kusoo badanayaan, hal abuuradana kusoo badanayaan, waxaa sahlan in la furo meelo badan oo cunooyinka fudud lagu sameeyo. Cunooyinkaas marka khaasatanna cunooyinka junk foodska loo yaqaano, sida haddaan tusaale hadda soo qaadano, meelaha qaar chips yaa lagu sameeyaa, waxaa lagu sameeyaa meelaha qaarkood waxyaalo oo macmacaan ah oo tiro badan oo la isku daraayo. Waxaa la sameeyaa cunooyin lagu daraayo sida waxyaalahan mayonnaise-ka iyo waxyaalaha lamidka ah. Waxaa la sameeyaa waxyaalo oo bakari ah oo lagu sameeyo meelaha foornooyinka. Waxaa la sameeyaa waxyaalo oo rootiyo iyo waxyaalo la isdhex gelgelinayo oo badan oo qaabab kala duwan loo sameynayo, oo ay ka buuxaan waxyaalo dhadhan macaan leh laakiin aan nafaqo lahayn. Waxyaalahaas oo dhan isticmaalkooga wuxuu saameyn xooggan ku yeelanayaa qofka, hadday ahaan lahayd caafimaadkiisa, dheefshiidka, maskaxiyan, dabci ahaan iyo cudurrada lala noolaado ee waqtiga dheer jiray. Intaba saameyn badan ayuu ku leeyahay. Cunooyinka aan ka hadlayno markii uu qofku inuu cuno bilaabo, dhadhankooda darteed maskaxda way la qabsataa, dheecaano ay kula qabsatayna soo deysaa. Sidaas darteed qofkii la qabsada cunooyinkaas waa ku adag tahay joojintooda. Cuntooyinkaas marka maadaama ay tamarta ku badan tahay laakiin nafaqada ay ku yar tahay, markuu qofka cunistooda uu la qabsado uu badsado, waxaa imaanaysa qofka inuu cayilo. Waxaa imaanayso cayilkaasi inuu keeno in insulin resistant wax la dhahay uu develop gareeyo, kadibna ay sokor, dhiig kar, wadne xanuun iyo xataa cudurrada faaliga ay ku yimaadaan haddii qofku uusan naftiisa ka xakameynin isticmaalka cunooyinkaas. Dhanka kale waxay keenaan in qofka hurdada ka xumaato, dabeecaddu ka halowdo. Waxay keenaan in qofka cunooyinka kaleeto ay ka hor istaagaan ee nafaqada leh. Sidaas darteed yay khatar dhan kasta ah ku leeyihiin qofka caafimaadkiisa. Haddaan fiirino dadka galbeedka ku nool, maadaama ay wadamo industrialized ah yihiin, dadkoodu badan yihiin, magaaleyntoodu xooggan tahay,
waxay ka fakereen dadka waxbarashada aadaya iyo dadka shaqaynaya iyo dadka hawl maalmeedka aadayaba inay u baahan yihiin cunooyin fudud oo waqtiyada ay shaqada ka nasanayaan ay isticmaalaan ee breakska sidaas darteed yaa cunooyinka junk foodska ay ugu badan yihiin marka maadaama cunooyinkaas ay ku badan yihiin waxaa jira cudurro laga dhaxlo isticmaalka badan ee cunooyinkaas oo galbeedka u qaasa laakiin wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay ee badi Afrika dhaca oo aanan heerka warshadayntooda xooganayn faqriga ka jiro oo ay ku yar tahay in cunooyinka si wanaagsan loo kaydiyo iyo in processing la marsiiyo waxaa la sameeyaa cunadii beerta laga soo guray noocay doonto ha ahaato suuqa la keena waa la iibsadaa iyadoo fresh sidaas darteed cunooyin oo fresh ay dadku cunaan cunooyinkaas freshka oo dadka cunayaan oon processeska marin maxaa faa'iido ugu jirto faa'iidada ku jirto haddaan hal tusaale keeno tusaale baradhada markii lasoo guro beerta laga keeno ee suuqa la keeno iyadoo fresh ah oo qofka isticmaalayo iyo baradhada jibska laga soo sameeyey ee lasoo warshadeeyey ee processingka lasoo marsiiyey waxay farqi ahaan u kala duwan yihiin tamartii waa isku mid laakiin tan fiber la socdo oo dabiiciga ah laakiin markii processingka cuntada la marsiinayo waxaa laga soo reebayaa fiberska faraha badnaa marka laga soo reebo cunto kasta oo fiberkeeda uu yar yahay mar allaala markaa cunto horaa dhiigga looga daraya iyadoo sokora kadibna maadaama sokorta dhiigga gashay ee tirada badan uusan jirku u baahnayn waxaa la isku dayaa in la kaydiyo waxaana loo kaydinayaa qaab oo sokor ah waxaa loo kaydinayaa qaab baruur ah marka sokortaas qaab baruur ah marka waqti dheer loo kaydiyo waa dareemaysaa in cayileydo haddaan tusaale kaleeta aan bixino waxaa tusaale usoo qaadan kartaa liinta macaan lasoo guro beerta laga soo guro ee suuqa la keeno iyo midda lasoo miiray ee lasoo warshadeeyey ee maxaa la dhahaa caaga lagu soo shubay ee laga yaabo in markii laga tago chemicalskii waxyaalaha kale lagu soo daray ee preservativeska ah kaliya in diet fiberkii tan laga heli karay tan laga soo saaro darteed isku si ma u saameynayaan oo qofka jirkiisa haddii liin oo gasacadaysan oo warshadaysan aa cabtid iyo haddii intii in u dhiganto oo liin dabiici aa cuntid oo sokorta dhiiggaada gashay la cabiro isku mid ma noqonayo sababtana waxay tahay tan lasoo process gareeyay si toosa dhiigga loogu wada darayo laakiin tan fiberaa la socdo sidaas darteed xaddiga oo jirkaaga markii ay gasho dhiigga lagu dari karo waa yaraanaya sidaa daraaddeed tusaalooyinkaas waxaan u bixinaa waxay ahayd in la fahmo cuntooyinka processedka maray khatarta ay leeyihiin dhan kale haddaan ka fiirino oo qofka uu ka fahmi karo cudurrada dadka Soomaalida ah iyo dadka Afrika ku dhaco waa cudurrada infectionska ah waxayna ka yimaadeen nadaafadda oo xun maxaa la dhahaa awoodda cudurrada looga hortago oo yar iyo daawooyinka iyo aan haysano oo tayadooda hooseyso laakiin markaa galbeedka iyo wadamada horumaray aad tagtid waxaa ku badan cudurrada kansarada ah cudurrada lala noolaaday waqtiga dheer jira sida diabetiga iyo wadne xanuunka iyo dhiig karka iyo waxyaalaha lamidka waxa keenaya in labada nooc ee cudurro ah ee labadaas dadku kala dhacaan waxaa qayb weyn ka qaadanaya nooca cunto ay cunaan iyo deegaanka ay ku nool yihiin iyo sida ay u cuneeyaan intaasba kaalin laxaad leh ayay ku leedahay kala duwanaanta cudurrada dadkaas ku dhacaya marka haddii magaalooyinkeena isbedelada ku dhacaya iyo cunooyinka noola soo dhoofinayo ay la mid noqdaan kuwa galbeedka waxaa sidoo kaleeto nooloo soo waaridayaa oo qasaba in dadkeena lagu arko cudurro aan hore loogu arki jirin ama aan ku badnayn oo galbeedka ku badnaa haddii maanta lahayn lahaa resultiga amaba natiijada dadkii 1980kii 70kii 60kii dadkeena magaalooyinka ku noolaa ama xataa baadiyaha jooga cudurrada ku badnaa iyo maanta magaalada ugu weyn dalka ee Muqdisho cudurrada ugu badan ee dadka lagu arko waxaa xaqiiqa in la heli lahaa in ay isbedeleen cudurrada dadka ku badanaa inay isbedeleen macnaheeduna maahan in cudurradaas aysan jiri jirin way jiri jireen laakiin in ay soo bataan cudurro oo ay deegaan ay kusoo bataan ama ay ka yaraadaan waxaa qayb lixaad leh ka qaata nooca cunto iyo isbedelka deegaan ee yimaada ayaa qayb ka qaata marka annaga Soomaali ahaan
Khatarta noo dheer oo aan dadka kale uga duwannahay isticmaalka junk foodska ayaa waxay tahay qofku markuu waxbarasho ama shaqo soo aado ee uu bannaanka junk foods fara badan ku cuno markuu guriga u laabtana waxaa ugu horeeya cunto hal nooc ah. Dunida kaleeto saxanka waxa uu ka kooban yahay dhowr qayb oo cunto ah. Waxaa sahlan marka qofku inuu ka helo cuntooyinkaas kala duwan nafaqadii uu u baahnaa iyo fiber-ka uu u baahnaa. Annaga laakiin markaa guriga tagtid waxaa kaa horeeya bariis iyo baasto iyo canjeero wax kale oo aan cunno oo aan naqaano ma lahan. Waxaa laga yaabaa habeenkii in marmar guryaha qaar laga sameeyo digir laakiin ma badna. Marka qofka cuntada Soomaaliga ah ee casriga ah oo la fiiriyo waa bariis, baasto iyo canjeero. Cunooyinkaasna waa cunooyin aanan nafaqada u baahnayd aadan ka helaynin. Tamaray leeyihiin waa sax laakiin nafaqada u baahnayd ma ka helayd. Marka qofkii oo bannaankana ku cunayo cunto tamartu ku badan tahay oo aan nafaqo lahayn markuu guriga tagana cunayo cunno aanan isu dheelitirayn oo hal nooc u badan qofkaas waxa uu khatarta ka imaan karta cunnadaas uga dhow yahay dadka kaleeto oo bannaanka markay junk food kusoo cunaan guriga cunto isku dheelitiran ugu horeyso. Mid kalena waa in hoosta ka xariiqna dadka galbeedka ah ee cunooyinkan aadka u cuno maadaama ay dhaqaale ahaan naga dhaqaale roon yihiin waxaa sahlan qofku wuxuu awoodaa inuu soo iibsado asagoo junk food iska cunayo wax kasta oo nafaqo ah oo ka maqan. Sidaas darteed haddii aad social media aad ula xiriirtid waxaa arki kartaa dadka galbeedka ku nool oo isticmaalayaan faybaro gooni ah oo ama bacaysan ama dhalooyin ku jiro oo la qasanayo oo la cabayo. Fiberkaas qofku wuxuu u cunayaa si uu caafimaad uga helo maayo fiberku wax weyn ayay qofka caafimaadkiisa ka tartaa khaasatan in qofku uu ka badbaado in cudurrada aan maanta dhan kasoo sheekeynin ay ku dhacaan. Marka fiberka waa muhiim waaye labadeeda nooc mid soluble-ka iyo mid insoluble-ka labadaba fiberku waa muhiim. Cunooyinkana waa laga helaa cunooyin ay ku badan yihiin aa jira laakiin cunooyinka Soomaalidu cunto fiberka aad uu ugu yaryahay. Sidoo kaleeto dadkaas waxay heli karaan fitamiinaadka iyo waxyaalaha nafaqooyinka ee ka maqan oo diyaarsan iyo farmashiyaasha kasoo iibsadaan iyagoo supplements ah. Annaga marka dadkeenii dhibaatadana haystaa waxay tahay dhaqaale ahaanna qofku ma awoodo inuu waxa soo iibsado suuqyadeenana badanaa lagama helo supplementskaas uu qofku u baahan yahay iyo fiberadaas. Gurigana cunto isku dheelitiran ugama horeydo bannaankana junk food uu ku cunayo. Marka intaas marka la isku daro khatar weyn yaa runtii dadkeena kusoo fool leh. Sidaas darteedna waa in laga baraarujiyaa oo arrintaas lagala hadlaa. Qodobka kale oo muhiimka ah oo dadku inay fahmaan u baahnaa waxay tahay concept ahaanna aa moodo in dadka misconception ay ka qabaan kansarka loo yaqaano kansarka mindhicirrada. Runtii kansarkaas hadda waxaan halkan ugu soo qaadayaa waxa waaye ciwaankan xiriir fiican uu la leeyahay. Cunooyinka galbeedka laga cuno iyo kansarka mindhicirrada ku dhaco xiriir fiican uu leeyahay. Maxaan ka wada xiriir fiican uu leeyahay cunooyinka fiberka ay ku yar tahay maxaa la dhahaa junk foodska ah waxaa lala xiriiriyaa kansarka mindhicirrada khaasatan mindhicirrada waaweyn aan ka hadlaynay colon cancerka wax la dhaho. Dadkeenu khaasatan dadka dhalinyarada ah 30s-ka ku jiro hadda waxaa kusoo badanaya kansarka mindhicirrada. Waxaa arkaysaa qof 30 jir ah oo hadda jaamacad dhameeyay ama shaqeeya ama oo la dhahayo qofkaas kansarka mindhicirrada ku dhacay. Runtii inkastoo kansarka aysan jirin sabab rasmi ah oo keento oo la garanayo laakiin waxaa jira wax la dhaho risk factors. Risk factorska ama waxyaalaha sahla in cudurkaas uu qofka ku dhaco ayuu ka mid yahay isticmaalka cunooyinka ay ku yar tahay fiberka. Marka sidaas darteed haddii aan isku soo duuduubno ciwaankan ujeedadiisa iyo hadafka laga leeyahay iyo fariinta uu sidaa waxay tahay adiga Soomaaliga ah waa uga khatar badan tahay cunooyinka junk foodska la dhaho dadka kale. Sababtana waxay tahay gurigaaga cuntada aad ka cuntidna nafaqo ahaan ma ahan cunto sax ah. Bannaanka haddaa cunto junk food ka cuntidna waa khatar kale. Marka fariinta ugu dambeyso oo aan halkan kusoo gudbinayo waxay tahay in mar kasto oo aad cuneynayso waxaad wax ku dareysaa ama wax ka dhimaysaa caafimaadkaaga. Marka ha sahlanin nooca cunto ee aad cunayso hana ka fiirinin dhadhanka ee ka fiiri dhibaatada caafimaad ee aad ka dhaxli karto amaba faa'iidada caafimaad
ee kaaga beeri karto. Marka cunto markaa cunayso waa inaad ku doorataa nafaqada ee aadan ku dooranin tamarta. Waayo tamartu wax kastaa ka heli kartaa tamar. Haddaa koob shaah aa cabtid waa ka heli kartaa. Haddaa caano cabtid waa ka heli kartaa. Marka tamartu cunooyinka badi tamar waa laga helaa. Cunooyinka dhan waa tamar ay leeyihiin. Laakiin cuno kasta lagama helo nafaqo. Marka aan iska ilaalino cunooyinka junk foodska la dhaho ee diyaarsan ee meelaha lagu iibiyo ee nafaqada lahayn ee dhadhanka darteed loo cunaayo. Marka ciwaankeena inuu dheeraado ma rabo. Intaasaan kusoo koobaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.